السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadka igu xidhan aad iyo aad baan idin salaamayaa bacda salaam caawa hadalka ma badinayo because kama bagaadhaba hadal kama bagaadha caawa waxaan caawa halkan u soo fadhiistay arrin soo noqnoqotay oo dhanaba loo jid saari waayay loona maxay ahayd toolay jihayn waayay dadkii u taalay ama dadkii arrinka lahaa ama dadkii gorfayn lahaa ay ka gaabinayaan uu ka caqli badiyay inay yar oo maangaaba taladiisa ay ku socdaan oo taladoodii ay gaabisay goobta ay ku rogmadeen iyo meeshan anigu lagu jabay ee maxay ahayd tole noocan cidagala ku noqday ilaa abtunow garan maayo reerkii haddaba ma wada cajuun buu noqday anagu yaabnaye wax isqabta biyaa laga waayey hoonkuyuu idinkaga dhigin sandaladii baanu nahay sandalada haddii aad sheeganaysaan sandalada tii soomaali weyn oo dhan iyo somalilandba u arriminaysay bay ahayde haddii taladii iyo tusaalihiiba aad gabteen oo heerkaa aad ka taagantihiin taliyo tusaale dee iska wareejiya oo ha la idiin taliyo wada cajuun miidhan baad noqoteene bal ilaah baan idinku dhaariyey ninkaasi wuxu uu gabadhaa ku hayo iyo rakaataynta uu ku samaynayo bal ila dhegaysta berri muxuu odhan ma waa cod la saaray tolaayo aaminadana safiya tusmadana ayn safiya tusmayda haynaaba waa safiya tusmo beri hore dhimatay beri hore ayuu dilay uu aasay uu waxaan kuuri siduu doono uu ka yeelay safiya tusma caruurteediiba u tagtay caruuray u tagtay ma jirtee qalfoof baa caruurtii u tegay oo dhex fadhiya safiya meel buu saaray ninkaas masiibe ilaahay kugu rid waxa aanse la yaabanahay reer walba nin waalan ama nin qalqaaliya way lahaan jireen oo nin hadduu waalanyahay tolkiibaa u miyir qabe ninkan waxa loo qaban laayaan yaabana cid islaam warku haysa ma jirto subaxa saga dambarta kugu birayo mulacda kagato ayna qof islaam kugu ganan wallahi halkaa haddii aan kugu halkaa haddii aan kugu bireeyo buuri cid warkuu haysaa ma jirto cajuunow calaamo allaha kugu rida horaad u biraysay safiya tusmo horaad u biraysay nolol ugumaa talagelin saasaanay ku biraysan tahay waxa aanse la yaabanahay tolweynahan iyo ummaddan reer somalilan ee sheekh iyo shariif bale ee arrinkan wax ka qaban la horaa loo yidhi maxay ahayd toole oo loo ceebeynayo lalahaa meher iskumay qabin waxaa la yidhi maxay ahayd toole halkaasuu la soo fadhiistuu yidhi maxay ahayd toole gabadhaydii may ahayn ceebuu u geystay fadeexad buu u geystay tol baa loo tegay waxay ku soo jawaabeen maxay ahayd toolayeen cadaymihii iyo meherkii keena war meherka marka la iskala imaado ninka gabadha maxay ahayd toolay intaa uu qabay miidiya la soo fadhiistay maa qabin oo saaxiib baanu hayn war kontonkeedii halaad oo magteedii haddii la dhiibo ayaanay saaka sharafteedii ku soo noqonayn dhibaatada iyo saamaynta soo gaadhayna aanay dib u soo noqonaynin ilaahay u jigira qof islaamka ogaanay wadanka diyaana ku gudbiyaan meelaha mooyaan soo moogid kor halkaa haddii aan kugu bireeyo buuri cid ku og iyo cid kaa war haysaa toona ma jirto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wallaahi bilaahi ninka haddii dhafoorka maanta laga toogtana dhafoorka xataa ninkaa laga toogtana ti uu ku sameeyey inaanay nolosheeda kasoo kabsanaynin annagoo dumarabaa naxdinta iyo wadnagariirkana gaadhay aanaan kasoo kabsanaynin qofkay masiibada ku dhacdayna maxaad u malayn masiibo ilaahay kugu rid horaad ii biraysay bay tiraaday biri wax qabanaysa alla qalbiga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wallaahi bilaahi tallaahi arrinkaa tusma haddii wax laga qaban waayo soomaalina ay ka hadli weydo soomaali marka laga imaadana reer shixisixaaq gaar ahaan reerka cidagalay u taalo ee aan maanta kasoo jeedo war meesha ninkii qabiil maxay ahayd tolo imikaba usoo hadlayo meeshayda ka baxa qofkii qabiil kusoo hadlayo oo maanta reer u danaaninayo ow meeshayda ka baxa cabdi ciise cajuun ninka difaacayo ow ha isku soo gelin meeshan adiga kuma khusayso inta dhiiggale iyo inta damiirkale iyo inta garashada le iyo inta caqliga labay khusaysaa arrinka tusma haddii meel la saari waayo ina la xumeeyay leedahay ta taaganna maanta waa masiibo ayaa taagan بلا كبريس هي باسه هذا
saaka meesha mad kala soo joogto maxaad dee afka la taagaysaa sidii guungarac laga tuuray madna laadash cilduu la tegay garbasaartii buu ka dhigay gaga cidlaa buu kusoo xidhay gaadhi buu ku kaxaysta ilama aha aniga tusmeyna sidan ku fayowday cabdi ciise cajuun anaa maanta la cida galaa balaaya magacaaga ma karto balaaya ku kartay masiibe ilaahay kugu rid wallaahi waxaan ku hadlayay iyo meel aan marayo inaanan isgaranaynin naxdinta aan ka qaaday xilliga aan kiliibkaa duubayaana waxa weeyaan kowdii habeennimo masiibe allaha ku rido ma masiibaa ka maqan haddaad meel iska saari weydaan tusmo oo arrinkeeda cidagela weynow aad ka hadli weydaan oo tolkayow ka hadli weydaan dee ina la xumeeyay leeday geedna xidid la-aan ma baxo tusma dad bay ka dhalatay qabiil bay ka dhalatay reer bay ka dhalatay ta aad samaynaysaan ama aad maanta yeeshaanna buugaagbaad sheegaysaan buug iyo taariikh la qoraad sheegaysaan wallaahi bilaahi talaay hargaha laydinku qoraya baan kuri buuguu maydhmaaye hargaha laydinku qoraya taariikh xumada aad reebteen iyo cawaaqib xumada aad ka tagteen weligiibuu dani khaldami jiray uu dhib geysan jiray tol baa ka arrimin jiray waar tolkii maxaa ku dhacay tolkiima wuxuu noqday maxay ahay toola yeelay ma dad iska roga qaaday noqdeen ma dadka horyoonan qaaday noqdeen tolkii maxaa ku dhacay mise wada cajuun bay noqdeen dee dadkani miyay sixran yihiin mise allaha u naxariistay xaaji cabdiwaraabiyo suldaan maxamed bay taladii iyo tusaalihii iyo arrinkiiba raaca dee haddaad waalantiin ood wada cajuun noqotaan ood khataarantiin ood maskaxda tihiin dee iska wareejiya arrinkiinii baad ka garfoon weydeen talo idinkaynu khusaysaad ayaad ka hadli weydeen arrin idiin yaallaad asturi weydeene matu dad kalaad arriminaysaan talada laydinla imanayaa saaka waatee arrinkase laydin weydiinaya halkuu yaallaa war masiibada dhacaysa iyo aafada dhacaysaad u geysanaysaan miskiintan aad dhibareeshinka ku rideen xanuunada ku rideen ee inankiinu nolosha ku toogtay meel saara nin walowba cuqubadu aday kuu taallaa oo haddaad ka hadli weydo wallaahi taaday ku dhacaysaa oo balaaya intay kaa maqantay qayrkaabay ku maqantaye haddii aad iska qaadi weydaan oo maxay ahay tolay 50 halaadoo magteedaa daayo boqolaal haddii loo dilaanay maanta soo noqonayn tii loo geystay dad baa odhanaya dabbay hurinaysaa hurin maayo cajuun anaa cid ugu xiga kuna garab istaagi maayo bilis baanahay iyadaa imaydhiso iyadaa dhiigkaygiiya iyadaana dhiig iyo dheecaani la wadaagtoo dumara waa dhibaatada dee maxay ahay tolo iyo dulmiga layskuma garab siiyo walaalkaa dulmiga iyo dee masiibadu samaynayaa ku garab siinin kanala dhashay baa inan soomaaliyad hadduu xumaynayo aanaan ku garab siinaynin maxaan ka garanayaabay tiri dhulgeeda luun baan arkayaaya bari iyo galbeed meelaan marayo toona garan maayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun gabadh beri hore dhimatay oo uu dilay oo wafaaday oo aynu qalfoofkeeda arkayno ayay inagaga dhigtay maasha allah carruurteediiba u tagtay qalfoof baa carruurtii u tegay maantana waxay ku dhex fadhido yaa war ka haya na soo garaacina idinkuna yaa war ka haya waxay carruurteedii reerkeedii ku dhex fadhido iyo dhibaatadii soo gaadhee saamaysay ay ahal leedahay ay qaraabo leedahay ay tol leedahay ay awlaad leedahay ay xidid iyo xigaalba ku xeeran yihiin ay habla leedahay maanta ee sidaa loo jiidaayo ay sadoh tahay waar imikaan leeyay oo berri baan leeya waan ku nuxnuxsanayaay inan la xumeeyay leedahay haddii tusmo meel la saari waayo iska kor qaada kulankii hore ee odayaasha lala kulmay ee lalahaa arrin baa laga wada hadlo odayaal baa wada kulmayna sidii la rabay loogamana hadlin odayaal yaroo jifo hoosoo 3 qof 4 qof oo iyada ka socda iyo 4 jifadiisoo ka socda ayaa arrinka tusmo ka kulmay maqaaxi yar baanay fadhiisteen loogama baahnayn tu maqaaxi loo fadhiisto mahayn arrinka tusmo kuraas cadcad baan arkayo markii wararka lasoo duubayay lagu soo duubayay manay istaahilin arrinka tusmo wuxuu ahaa mid raashic isxaaq oo dhan iska arkaan iyo samaroon siciid oo dhan oo laysugu yimaado oo gogol laysu fadhiisto oo maxay ahay toolay laysu gogol fidsado oo guryo laysu goglado oo jilbaha laysu aasto oo neefafiya awrarba lagu qalabay ahayd oo taladeeda iyo xaajadeeda la gorfeeyo xaggeed sidii digaagad baktiday ama maxay ahay toolayeen dameer gaadhi jiray arrinkeeda looga hadla waar arrinkan meel ha looga soo jeesto oo wallaahi oo bilaahi oo ta soo socota waxaan u malinayaa tii somalilan ku kala qaxaysa inay tahay dhaha balaayada fuufaysa afuufi maayo
xaqa feedhaha haddii afka haddii la qabta baa la yidhaha xaqu feedhuhu ka dilaacaa xaqa afka haddii la qabta feedhuhu ka dilaacaa fideoga maanta soo baxay ee tusmo naxadin ha igu ahaado laakiinse waan ku qanacsanay waanaan ku faraxsanahay waxaan ugu faraxsanay waxay tahay inuu soo baxo waa la didsiyo waxa laga soo qaaday naag tumanaysay caruuraheedii iyo reerkeedii soo baylihisay oo inan yar usoo dhooftay may ahayn ninkeedii buu ahaa fideoyamaan ka duubin buu yidhi anigu oo wuu dafiray caddayn bay u noqotay xaqii baa dildilaacaya xaqii ayaa dildilaacaya tusme ilaahay baa la jira annagaa kula jirno ilaahay baa kula jira soomaali inta ku jecel baa kula jirta ka seexan mayna caawa arrinkaaga murugada iyo dhibta iyo falxumada wallaahi naga haysata inaadan malaynaynin haddii maanta aan wax ka qaban karayna cagku dumar baan ka ahayo hadal uun ayaan kuu taraya iyonan codkayga inta waxgaradka ah kuugu gaadhsiiye garaad ku shaqeeyo insha allah isaguna ta uu kuu geystay masiibada kuu geysta haadaa baanu leenayay ilaahay ha ka soo ifsaaro adigana cawil bedel khayr qaba naadir ilaahay kaaga barye gabadhan la leeyay iyaduna maxay ahayd tolaye nimca deganee soo nuucsanaysa nimca deganey inaadeer deganey korbiliseed kabays ma dheera tusmo waad ku dheeraatay waanaad usoo jawaabtay waadan ku khaldan ta haysataa aday berri ku qabsan kartaa naag walbana hoosteediiyo gundaheeday ka shidan tahay tusmo sharafteedii may baabi'in wanaaggeediina muu baabi'in nasabiyadeediina may baabi'in ceebtii iyada lala rabay cajuun iyo ciidagalaweynaa ceeb uga dhacdhacay cajuun iyo ciidagalaweynay maanta ceebta hoos taalla waar iska qaada ceebta iska qaada guri kastoo samaroona maxay ahayd toolo ama maxay ahayd tooloyeen samaroon siciide dee hablo ciidagalaabaa lagu qabaa oo hablo reesha xisxaaqay ku qabaan way heli karaan inay idinka aaraan alla nasabiyadiyo iyo maxay tolo gobanimadii macaana intay garanayaan ay xeerinayaan weli maydaan xeerin ilaa abtunaguna waxa la wadwadaa maxay ahayd tolo kiliibadii inantooda war jiirkiisa lahaya baa layidhi jiirkiisa lahaya jidiinka kama qoslo nin maalin walba inantoodii la xumeynayo miidiyaha la keenayo oo noocaa lagu hayo ma kula taytiinuna inay qoslayso waa maya waar aanaha dhiganina